Assalaamu calaykum kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiin kusoo dhowaada wararkii Soomaaliya iyo caalamka oo aad ka daawanaysaan SMN TV1. Waxaynu ku bilowno wararkeena. Dagaal xooggan ayaa la sheegay saaka inuu ka dhacay aagga Gooja Cadde. Dagaalkaasi oo ay soo qaadeen ciidamada Somaliland halka ay iska difaacayeen ciidamada xaq u dirirka SCC. Dagaalkaasi oo iskugu adeegsanayay madaafiic. Dagaalkaas oo noqon kafool ayuu ahaa dagaal isku weedaarsanaya hubkiisa kuwa noocyada waaweyn. Sidaas darteed waxaa la soo sheegayaa Gooja Cadde ciidamadii ku sugnaa oo aysan haysan waddo ay ka baxaan oo isku dayay inay raadsadaan waddo ay ka baxaan ama ay u soo marto saanada ciidan ama ay marsadaan dhaawacyada. Dagaalkaasina wuxuu qarxay subaxnimadii Jimcada saaka ay ahayd Aalasaydi oo ay soo bilaabeen ciidamada Somaliland. Labada dhinac khasaaraha soo kala gaaray oo weli aan la soo bandhigin ayaa laakiin waxaa la sheegayaa inuu khasaarada u badan yahay dhinaca ciidamada Somaliland. Warar kale oo xasaasi ah waxaynu ku helaynaa dowladda Somaliland madaxweynaheeda Muuse Biixi iyo dowladda Jabuuti madaxweynaheeda Ismaaciil Cumar Geele oo isku khilaafay arrinta ictiraafka ah. Ismaaciil Cumar Geele ayaa xaqiijiyay inuu noqon doono Somaliland xataa haddii hesho aqoonsi dowlado dhan ay aqoonsadaan inuu noqon doono dowladda ugu dambeysa oo ictiraafkeeda aqoonsata. Xildhibaan Mareykan ah oo ku doodaya in laga dhaadhacsiiyo Joe Biden inuu ka soo saaro ciidamada kaga sugan Soomaaliya. Ciidamadaasi Soomaaliya ku sugan oo Mareykanka ah in laga soo saaro Soomaaliya oo wax dan aysan ugu jirin inay kusii sugnaadaan Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala ayaa sheegay inay guulo weyn ka gaareen ururka Al-Shabaab, ayagoo sheegay inay ka xireen bangiyadii ama xawaaladihii ay u isticmaali jireen lacagaha inay ku kala gudbisadaan ama ay kaga qaataan ciday doonayaan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala ayaa saxaafadda iskugu yeeray warkaasina u soo bandhigay. Haddaan kusii soconno wararkeena waxaa ka mid ah hanaanka deyn cafinta dowladda Soomaaliya oo maraya meel fiican ayaa la sheegay shir lagu qabtay magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed uu ka soo saaray shirkaasi Keith Hansen oo uu kaga hadlay arrinta deyn cafinta Soomaaliya. Keith Hansen oo u qaabilsan agaasimaha Bangiga Adduunka sida dowladaha Soomaaliya, Kenya, Uganda iyo Rwanda. Agaasimaha oo halkaasi ka hadlayay ayaa sheegay arrinta deyn cafinta Soomaaliya in ay marayso meel aad u fiican. Dowladda Soomaaliya oo martay habka HIBC oo ay maraan dowladaha deymanka ay ku leeyihiin Bangiga Adduunka ayaa wuxuu sheegay inay meel fiican soo gaartay Soomaaliyana ay haysato jaanis. Fadlan haddaad nagu cusub tahay hanaga iloobin subscribe-ta, like-ta, share-ka, wixii falanqeynna commentiga noogu reeb. Mahadsanid.